assalaamu calaykum. waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhowow muuqaal kale. uma malaynayo inuu jiro qof aan isbeddeldoon ahayn, riyo lahayn, noloshiisana wax ku weynaysan jirin, balse halka ay dadku intooda badan ka dhaqaaqi la'yihiin ayaa ah shantan dabar oo aan ku soo gudbin doono muuqaalka oo ku xihan nafsadahooda, kuwaasoo ka dhigay dadku nolol aan hor u socod lahayn, kuna meeraysanaysa hal meel. xigmaddii soomaaliyeedna waxay ahayd bartiyaqaan bari uma kororto, oo macnaheedu jilcan noqonayo qof aan dhaqaaqin waxna isku dayin inuusan helin natiijo ka duwan kuwii hore. haddaba si aad u dhaqaaqdo isbeddel wanaagsanna aad ugu samayso naftaada, iska hubi caqabadaha ku haysta oo aad la dhaqaaqi la'da inay yihiin shantan dabar. eedayn aan dhammaad lahayn. qofka hadduu yahay mid haddii ay wax ka xumaadaanba ku eedeeya dadka kale oo aan qaadanin mas-uuliyadda naftiisa iyo dhaqdhaqaaqeeda, waxaa ku adkaanaysa qofkaasi inuu horay u tillaabo qaado, noloshana uu wax ka barto. waxaa shaki ku jirin noloshu qaabdhismeedkeedu inuusan ku koobnayn xaalado hagaagsan keliya, balse ay ka badan yihiin xaalado adag looguna tala galay cashir iyo ku cibro qaadasho. oo haddii aadan waxba ka baran, nolosha dhacdooyinka cashirada leh ay kula kulansiiso, iyadoona kaama daynayso soo celcelinta dhacdooyinkaas ilaa aad wax ka barato. jooji eedaynta aan dhammaadka lahayn oo aad ku hareeraysay u dhaqaaqidda riyooyinkaaga, oo si dhammaystiran u qaado mas-uuliyadda naftaada, adigoo aadan cidna ku eedeen wixii ka xumaada, balse aad wax ka barato. fikir aan ficil lahayn. waxay u badan tahay inaad hesho fikrado aad u sarreeya oo haddii aad ku dhaqaaqi lahayd aad soo saari lahayd natiijo wax ku ool ah, balse waxa kaa reebaya waa fikir fara badan oo aan wax dhaqaaq ah lahayn. mid ila fahan. dhib kuma jiro inaad fikirto fikradan aad soo saarato, kuwaasoo wax wanaagsan ku soo kordhinaya naftaada, waxna ka beddelaya qaab nololeedkaaga, balse waxa laga wanaagsan yahay kaana dhigaya qof fadhiid ah oo aysan waxna u kordhin ayaa ah dhaqaaq la'aan. waa dhaqaaq la'aan, taasoo sababaysa fikradihii tayada badnaa ee aad soo saartay inay ku dhex dhintaan isla maskaxdaada. sidaasi darteed waxaan ku leeyahay, iska fur dabarka ah fikir aan ficil lahayn, kuna beddel fikir iyo ficil wada socda. mar walbana ku dadaal oo ku dhaqaaq waxa aad ka dhex aragto maslaxaddaada. filashada awood ka leh. noloshan sunnadeeda waxa uu alla ka dhigay in qof kasta uu u halgamo doonistiisa si looga abaalmariyo, haddii ay tahay mid adduun iyo mid aakhiraba. ma jirto qof kale howshiisa iyo doonistiisa u qabanayso, balse qof kasta waxa uu leeyahay waxa uu u dadaalo una dhabar adeego. allana waxa uu ina leeyahay, waman jaahada fa innamaa yujaahidu linafsihi. qofkii dadaala waxa uu u dadaala naftiisa un. inta aad filayso xaaladahaaga nololeed inay iskood isku beddelayaan, ama aad heli doonto qof kuu qabta sida aad wax u rabto, waxaad taagnaan doontaa booska aad hadda taagan tahay. weligaaga waxaad taagnaan doontaa booska aad hadda taagan tahay, oo sannadkii kuu dhashaba inuu cimri iyo gabow kuu kordho mooyee aadan heli doonin wax dheef leh iyo isbeddel aad mahadiso. taas beddelkeeda iska fur dabarkan oo isku tasho, midna maskaxdaada geli in xagla laaban aysan xoolo ku imaan. la noolaashaha wixii tegay. soomaali haddaan nahay waxaan ku mahmahnaa, wixii tegay tiigsimaad ma leh, oo waxba lagama beddeli karo si kastoo la isugu dayo. noloshana waxay ku dhisan tahay 3 waqti oo aan lahayn mid afaraad. waqti tegay oo noqday taariikh nololeed qofka noloshiisa ka mid ah. lagama walwalo oo waqti laguma bixiyo, ileen waa wax tegay oo aan sinna wax looga beddeli karin in wax laga barta mooyee. waqtiga soo socda oo horteenna ah, isaguna ma mudna ka walwalidda iyo ka fikirka sida ay wax noqon doonaan. sababtuna waxay tahay waa waqti ku jira alla maamulkiisa, keliya waa in loo diyaargaroobaa loona tala saartaa alla weyne. waqtiga taagan waxa uu ka mid yahay maalintaada, waana midka ugu muhiimsan oo aad uga faa'iidaysan karto waxyaabo badan oo u muhiimsan naftaada. waqtigan waa mid baal cusub loogu furi karo nafta, loogana sabarsiin karo wixii tegay oo aan waxba laga beddeli karin, oo ay tahay taariikh qorantay, sidoo kalena loogu diyaargaroobi karo waqtiyada soo socda. marka haddii aad la nooshahay wax ku soo dhaafay oo dhaawac kugu reebay, waxaad beeldaraynaysaa taaganta maanta iyo u diyaargarowga berrito. mala xun. tallaabo kasta oo aad u qaadayso dhanka hadafyadaada iyo qorshooyinkaaga nolosha, marba haddii aad niyad xun tahay oo sharfilasho mooyee khayr iyo guul aadan la kulmi doonin, waxay u badan tahay inaadan guulaysan. waxay u badan tahay inaadan guulaysan gaarinna halka aad rabto, sababtuna waa niyad xumadaada.
soo allihiinna abuurtay ee ah mabaahdaha aan u wada baahannahay ma dhihin ana cinda danni cabdii bii addoonkayga waxaan u ahay waxa uu iga malaysto aad u dhow hadalkan wax kasta waa niyaddaada iyo maladaada mar walba wanaaji maladaada oo fila khayr go'aannadaadana tallaabooyinka ka dhasha inaad qaaddo u tala saaro alleh oo xasuusnow hadalkii allah subxaanahu wa tacaala ee ahaa fa idaa casamta fatawakkal cala allaah haddii aad go'aan gaaraysaan alle u tala saarta sidaasi darteed waxaan ku leeyahay maladaada hagaaji kuna hareeray ka filashada xaalad kasta khayr iyo wanaag ugu dambayn dabarada ku xirma qofka si uusan u dhaqaaqin waxaa ugu weyn eedaynta aan dhammaadka lahayn oo ka dhalata mas-uuliyad la'aan fikir aan ficil lahayn oo maskaxda daaliya kaasoo ugu dambayn ku dhex dhinta maskaxda filashada awood kale oo ah in wax kasta ay iskood isku hagaajin doonaan ama qof kale uu hagaajin doono la noolaashaa wax horay u dhacay kaasoo naftu ay ka dhaqaaqi la'dahay iskana dayn la'dahay ka fikirkeeda iyo malada xun oo ah niyaysashada in waxba aysan hagaagi doonin si kastoo loo dadaalo hagaag inta aan goordhow ku wada kulmi doonno muuqaalka xiga waxaan kaaga mahadcelinayaa wakhtigaaga qiimaha leh oo aad ku daawatay muuqaalkan waxaana rajaynayaa in wax uu ku kordhiyay naftaada mahadsanid